iyadoo muddooyinkii u dambeysay ay ka socdeen degmada Taleex shirweynaha Khaatumo 2 ay kaga tashanayaan danahooda beelaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa waxaa maanta si rasmi ah degmada Taleex lagaga dhawaaqay maamulka cusub magacii uu yeelan lahaa taas oo ay u codeeyeen 358 xubnood oo kamid ah ergadii ka soo qayb gashay shirweynaha Khaatumo 2 sidoo kale waxaa ka aamusay 7 xubnood halka 5 xubnoodna ay diideen magaca maamulka cusub loo sameeyay waxaana maanta ka dhex muuqanayay hoolka shirku ka dhacay ee degmada Taleex boqolaal dadweyne ayagoo ku dhiibanayay aragtidooda ku aadan magaca cusub ee loo sameeyay Khaatumo State of Somalia sidoo kale waxaa degmada Taleex maanta ka dhacayay tamaashaadyo kor loogu qaadayo laguna muujinayo maamulka cusub ee loo doortay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kaas oo ah Khaatumo State of Somalia shirkan ay isugu yimaadeen ergooyinka kala socda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa loogu magac bixinayay maamulka cusub oo hadda ka hor ku dhawaaqeen walwaalka shaacin magaciisa waxaana maanta si rasmi ah loogu dhawaaqay magaca uu yeelan doono maamulka cusub ee lagaga dhawaaqay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kaas oo loo bixiyay Khaatumo State of Somalia wararkaas waxaa ka hadlay afhayeenka G6 ahna gudoomiyaha saxafiyiinta waxa uuna u akhriyay saxaafadda qodobadii ka soo baxay maanta shirweynaha Khaatumo 2 ergooyinka shirka Khaatumo oo saaka waxay dib u bilaabeen doodii qodobadii maalmahanba ay ka doodayeen ajandaha shirka Khaatumo qodobada maanta loo codeeyayna waxaa ka mid ah oo ugu horeeya in magac loo bixiyo maamulka cusub ee laga yeelayo gobolada Sool Sanaag Cayn kadib markay codeeyeen ergooyinku waxay qodobkii koowaad ku ansixiyeen oo la isku raacay in ismaamulka cusub ee gobolada Sool Sanaag Cayn loo bixiyo magaca Khaatumo State of Somalia qodobka labaad ee loo codeeyay wuxuu ahaa dhismaha haykalka guud ee maamulka cusub ee Khaatumo waxaana la isku raacay inuu ka koobnaado sida tan kow golaha sare ee dhaqanka 2 golaha wakiilada 3 golaha madaxtooyada oo ka koobnaan doona 3 xubnood oo gudoomiyenimadu ay noqon doonto meerto ama wareegto 4 golaha wasiirada oo ka koobnaan doona 6 xubnood 5 golaha garsoorka 6 iyo hay'ado dastuuri ah oo madax bannaan sida hay'adda hantidhawrka waxaa kaloo loo codeeyay inay sii jiraan guddidii fulinta ama group 6 laguna kordhiyo 3 xubnood oo cusub kuwaas oo noqon doona 9 xubnood oo hawlaha xiriirka dibadda iyo xiriirka caalamka ka shaqeyn doona waxaa halkaas ka hadlay Professor Ali Ciise Cabdi oo uga digay maamulka Somaliland maadka uu ku hayo gobolka Cayn iyo guud ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa uuna sheegay inaysan gacmaha ka laaban doonin falalkan xunxun ee loo geysanayo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn mahad gaaraan u celinaya saxaafadii ka hawlgashay shirkan Khaatumo oo maanta 12 casho ku sugan sida la ogsoon yahay waxaan ku rajo weynahay shirkan inuu waqti gabagaba ku jiro hawlihii ugu cuslaayay meeshan ergada lagu tilmaamay 364 maanta ay ka arinsanaysay waxaan anaga farxad weyn noo ah inay si daacad iyagoo looga dooday si xalaalnimo ah oo miisaan leh arrimahaas ergaduna ay qaadatay waanu ku mahadinaynaa xilkaasnimay muujiyeen waxaan kaloo doonayaa inaan carabka ku dhufto waxaa nagu socda arrimo badan oo annagu aanan markii hore islahayn waydu ku yimanaya waxaanu ku talagalnay mar ku baaqnay 2 ku baaqnay 3 ku baaqnay inaanan wax aan nabad iyo wada tashi iyo maxaan ku yiraahdaa wax isweydaarsi maahin inaanan dadkaan deegaanka nahay ehelkana nahay inaanan kula dhaqmin inaan dadka shirka kan joogay isku waciyeen maalintii koowaad ilaa maanta 12 inaanu nabad u fidino nim aanu dulmiyeenana nagu madaxa kumaanaan hayn laakiin aanu waxna dulmiyana u dulqaadanahayna duwanaana u sheegayno gabdhaha hadda ka socota buuhoodle inay tahay waxaan loo dulqaadan karin waxaanu leenahay ka waantooba walaalaha iyaga waqooyi galbeed waxaanu leenahay beelaha caalamku hanala garteen in gabdhaho xaqdarraa oo marag madoontii ay ka socoto maanta buuhoodle waxaanu leenahay arrintaa hala soo afjaro sida ugu dhowna ha lagu afjaro ha lagu soo noqdo nabad
deris wanaag iyo doob xalaala oo wixii beelaha dhex yaala ay ku kala bixi karaan. waxaa halkaasi hadlay cali khalid galeen oo isaguna ka warbixiyey haykalka maamul oo yeelan doona gobolada sool sanaa iyo caydka golaha baarlamaanka. maanta magaalada taariikhiga ee Taleex geedka bardaha ee Khaatumo waanadaas laga gaaray waa tii hore loo go'aansaday maamul in la dhiso maamulka magaciisina waa ka haykalka ama habka uu dhismihiisu noqonayana waa taa la sheegay haykalkaas ama qaab dhismeedkaasu golayaasha qaarkoodna kuwa soo jireena weeye kuwana waa kuwa cusub oo marxaladan ay beesha Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay marayso ay ku kaliftay inay ka bogtaan oo fiiriyaan sida ugu habboon ee danahooda ay ku maamulan karaan. marka maanta kullay qolyaha iyagii hawshan muddo ku soo jiray farxad gooni ay noo tahay waxaana hubaa ergooyinkuba sidaa voodkooda u dhacay inay arrimaha loo soo jeediyey ee muddo laga doodayay ee la faguray ay dadka beelaha dhulkan ku nool waa tashadeen saasay ugu muuqatay maanta inay danahoodan waayadanba cidi ayan ka warhayn maankoodana ayan kuba jirin in ay iyagu gacmahooda ay ku qabsadaan nin walbana gacmihiisu biyo kaga dhargaaday Soomaalidu tiraha waa ognahay siyaalo badan baa looga faaloonay ama wax looga sheegay dooda meesha ka socota iyo maamulka ay dadku gidigoodba ay ku hadaaqayeen maamulkana cidna khutuurad ama khatar ma gelinayo cid walba waxaan jecelahay daris wanaag iyo nabad inaan kula Cabdulla Cabdi Xiis telefishinka caalamiga oo aan cable TV Taleex.